بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرشحينتا بعد الصحافة هذا وما سنتهين سيدا ولاكي عبد الرحمن ودنكو وربحية حالنا لغيها بينا كردها هاتين والمرتيد كمدشة مرشحينتا شركة وحوكو سابسية هاي إنا سيفها فاهنو موقف كمدشة مرشحينتا نقطة كوباد وحواي dal wuxuu ku jiri karaa sharciga in la ilaaliyo madaxda waxa lagu doortaa sharci waxay u xil saaran tahayna waxa waaye ilaalinta sharciga waxa ugu weyn madaxweynaha ayaa ugu weyn dalkaana burburkiisa iyo dhibaatadiisa sharciga la ilaalinay ka imaanaysa madashan iyo madallada kale oo jira dhamaantood waxay ka shaqeynayeen inay u ololeeyaan ilaalinta sharciga bisha 8 febraayo 2017 waxaa la doortay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waqtigii wuxuu ku dhamaaday xalay waqtigan oo kale waxay ahaaday in ama madaxweyne la doorto ama hawshii doorashada lagu jiro ama markay ugu yar tahay heshiis doorasho oo lagu qanacsan yahay inuu socdo intuba ma dhicin waxaan u aragnaa marka arrintaas nasiib darro weyn inaanan taariikhdii soo marta dalkan xilligii oo xurka ahay aanan wax ka baranin oo weli isla dariiqii aan ku soconno haddii marka madaxweynaha waqtigiisii dhammaaday waxa uu ku joogana ay tahay awood loo siiyey inuu dalka maamulo sharcigiina uu ka dhamaaday wax dadaala oo miro dhal ah oo ku aadan arrimaha doorashooyinkana ilaa hadda aysan dhicin maxaa lagu aamini karaa in hadda ay dhacayaan doorashooyin xura oo xalaala oo dalka horumar gaarsiiya arrintaas ma muuqato taas waa qodobka labaad waxa waaye madaxweynaha marka sharcigu ka dhamaado awaamirta uu bixinayo iyo hay-adaha kale dawladda ay ka dhamaadeen sharciyadu dhaqanka ay ku dhaqmayaan waxay noqonayaan kuwa khilaafsan sharciga taasna waxay keenaysaa inay meesha ka baxdo ama sida la sheegaba vacuum uu yimaado dawladnimadana meesha ay ka baxdo waxaan wada ognahay dalkan inuu yahay dal jilcan la isu soo dumaayey dadaal fara badan lagu waday marka uu yimaado cid aan xaq u lahayn inay hogaamiso isla markaasna aad ogtihiin culeysyada amni midka dhaqaale midka bulsho ee dalka ka jira isla markaasna aysan jirin wadiiqad cad ee looga baxayo arrintaas waxay keenaysaa mugdi qarannimada Soomaaliyeed waxaan rabnaa marka hay-adaha dawladda dhammaantood kuwana waa siyaasiyiin sida baarlamaanka kuwana iyo golaha wasiirada madaxweynaha kuwana waa garsoor kuwana waa hay-adaha maxaan ku iraahdaa technicalka ah ee fuliya shaqooyinka wasaaradaha ama qaybaha kala duwan hay-adaha siyaasiga waa ka dhamaada waqtigii waxaa ugu horeeya baarlamaanka waxaan ognahay hadduu ka dhamaado waxay sugayaan baarlamaanka in la soo doorto laakiin macnaheedu ma aha in ayagu laftigooda ay ka qayb qaataan dib u dhaca doorashooyinka marka waxaan rabnaa inaan ka digno in uu dhaco extension maxay ahaato ama xukun kororsi aan lagu heshiin waqtigii waa dhammaaday mar walba in wax la kordhiyo waa imaanaysaa laakiin waxa la kordhinayo waqtigooda iyo waxa la qabanayo inay caddaha ayaa loo baahan yahay marka ciidamada qalabka sida wiilasha dhalinyarada iyo gabdhahaba waxaan rabnaa inaan u sheegno waxa u yaala sharci lagu dhisay ciidamada sharcigaas wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo awaamirta khaladka ee madaxda ka imaanaysa weliba waqtigeedu dhamaaday fulintooda waxaa ka dhalanaya dembigaasna wuxuu noqon doonaa mid lagu xisaabtami doono askari kasta sargaal kasta oo ka tirsan ciidamada qalabka sida waxay u sidaan qalabka waxay u qaateen tababarka waxay u qaateen darajada inay ilaaliyaan shacabka Soomaaliyeed
xornimada iyo sharafkooda waxaan rabnaa inaan uga digno inaan loo adeegsanin awaamir khaldan oo lagu dhibaataynayo qarannimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed sidaas oo kale hay-adaha kale dawladda dadka maanta awood u leh inay wadaan shaqooyinka waxa waaye dadka maxaan ku iraahdaa civil servantka laakiin dadka siyaasiyiinta waxa la rabay inay ka shaqeeyaan ama golaha wasiirada ha noqdaano ama ha noqdaano maxaan ku iraahdaa baarlamaanka inay qayb ka qaataan sidii dalkan doorasho uga dhici lahayd waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo ummad kasta xadaaradeeda waxaa laga arkaa qaanuunkeeda iyo siday u horgeliso maanta oo aan joogno dastuurku waa qabyo ilaa hadda nidaam doorasho oo lagu heshiiyey ma jiro waxaad la socotiin inta shir oo inta loo fariistay aan lagu heshiinin marka waxay u baahan tahay in laga heshiiyo dalkan hogaamintiisa meesha ay aadayso sababtuna waxa waaye ma cadda ilaa hadda cidda xaqa u leh inay hogaamiso dalka si doorasho loo gaarsiiyo oo ummaddan ay uga saarto mugdiga waxay u baahan tahay in laga wada hadlo laga heshiiyo iyadoo la fiirinayo sharciga aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.